wafdi federaal oo hordhac ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay gaareen magaalada Garowe. wariyaha iyaga Ayuub Cabdikariin ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garowe. wafdigan soo gaaray magaalada Garowe oo ka soo kicitimay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa garoonka Kanoka ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka. mas'uuliyiintan hordhac waa safar dhawaan la filayo inuu ku yimaado deegaanada Puntland. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu jiray xildhibaano iyo qaar ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya. سعيد محمد ورسمي قاسمها بروتوكول كمدحتويada Soomaaliya iyo xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Maash ayaa Soomaali Cable u sheegay in safarkoodu hordhac u yahay socdaal la filayo dhawaan in madaxweyne Farmaajo ku yimaado Puntland 8 bishan isla markaana uu xariga ka jiri doono mashaariic horseed u yahay dhismaha madaarka Garowe. wafdigan oo runtii aan hogaaminay ayna kamid ahaayeen mas'uuliyiin aad u sareeya xildhibaanada dawladda federaalka hordhacna u ahaa socdaalka madaxweynaha uu ku iman doono dowlad goboleedka Puntland maalmaha fooda nagu soo haya taasoo runtii muhiimad weyn aad u xambaarsan oo uu ku mari doono gobolada Puntland kuna ogaan doono madaxweynuhu uguna ku gali doono marxaladaha iyo xaaladaha ay bulshada reer Puntland ay qabaan isagoo runtii qof iyo tuulo deegaan u mari doona runtii waa safar aad u baaxad weyn waxaan nahay tiimkii hordhaca ahaa oo la sii shaqeynaya dawladda runtii gobolka Puntland oo si weyn ugu diyaar garowday safarka madaxweynuhu ku iman doono Puntland. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad u salaamaya kaalintan soo dhaweynta ee aad ku qiimaha sareysa. waxaan rajeynayaa insha Allah maalmaha fooda nagu soo haya inuu soo gaaro madaxweynuhu iyadoo si fiican loogu diyaar garoobay. waa run madaxweynuhu wuxuu xarig ka jirayaa mashaariic ballaaran oo horumarineed oo ka socotay Puntland isla markaana waxa caado ah madaxweynuhu inuu booqdo isteedada maadaama ay Puntland state ay tahay state-ka ugu horeeyay oo Soomaaliya laga dhiso ay tahay state-ka ugu nabadda badan state-ka ugu horumarka badan saadarteed madaxweynuhu booqashadiisa wayba ka soo daahday hore ayuu u qorshaystay maanta laakiin ayaa moodaa in ay ka soo dhamaatay xagga rabbi saas ayuu safarkiisu yahay madaxweynaha. wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Maryan Axmed Cali ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen soo dhaweynta wafdiga madaxweyne Farmaajo. anigoo ah wasiirka horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland isla marhaantaasna ka tirsan guddiga madaxweynaha dawladda Puntland uu igmaday soo dhaweynta wafdiga baaxadda weyn leh uu hogaaminayo madaxweynaha federaalka uu hogaaminayo in ay maanta noo soo bilaawdeen kooxdii u horeysay xildhibaano ay hogaaminayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waa ku soo dhaweynay airportka inay noo yimaadaan waxa weeye aad baan u filaynay inay noo soo hormaraan waana sugeynaa inta dambe walaalayaal ku soo dhawaada dawladda Puntland walaalayaal ku soo dhawaada carrada Puntland walaalayaal ku soo dhawaada Garowe inta dhimanna waxaan rajaynaynaa labada bariyo soo socoto inay noo imaadaan waa u diyaarsanahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno. Ayuub Cabdikariin Ali Soomaali Cable TV Garowe.